بسم الله الرحمن الرحيم waa walaalkii Siciid Ereg oo rabo inaan duubo qaybtii labaad ee mahmaahda af Soomaaliga. Hadda ka hor ayaan qaybtii koowaad duubay. Caawana waxaan rabaa inaan qaybtii labaad ku daro. Marka insha Allah maarta kanaalkayga haas Siciid Ereg ayaad ka helaysaan. Mahmaahyahana saan hore usoo sheegay anaa isku soo dubariday, iska soo qorqoray, anaana fasiraya. takhasusna uma lihi ma garanaysaa suugaanta iyo dhaqanka iyo waxaan odaytinimo iyo maqal aan ku keenay weeye. Marka haddii wax ka khaldanaadaan raalli ha layga ahaado ma garanaysa. marka alaaba maadaba afkeena way ku qoran yihiin, fasiraad badan uma baahna. kan ugu horeeya waxaa weeye nin is ammaanay waa ri is nuugtay baa layidhi. nin is ammaanay gabar is ammaantana waa la mid tahay waa la mid wey. marka taas waxayna tusaysaa qofka in looga baahan yahay inuu maaragtay isagu uusan is ammaanin. dad waxaa jira markaad la fadhiisato haddii aad u dhimanaysa ma garanaysa waxay ku hadlayaan. darajo aysan lahayn bay sheeganayaan, xoolo aysan haysan bay sheeganayaan, dad aysan la kulmin bay sheeganayaan, balaayay wax iska dhigay wax bala ka dhacday. marka waxaas fayga looma baahna ma garanaysa. qofku waxa uu yahay waa inuu ahaado ku qanacsanaadaa, beenta iyo waxaasna iska dhaafa ma garanaysa. marka riis nuugtay saysan qiimo u lahayn ayaa qof is ammaanan uusan qiimo u lahayn ma garanaysa. marka waa inaan sidaas maaragtay uga fogaanaa ma garanaysa. waxay kaloo Soomaalidu waxay dhahdaa haddii lagu sheego waa laysi sheelaa, haddii lagu sheegana waa laysi sheegaa. marka waxa weeye qofku hadduu value keeno adduunka wax qiimo leh hadduu dadka u keeno waa la ogaanayaa, waana la aqoonsanayaa, waana la baranayaa. adoon wax qiimo la keenin oo dadka wax qiimo leh hor keenin inaad ammaan iska raadiso waa wax maaragtay caqliga gelayn ma garata, laga fiican yahay wey ma garata. marka taas halkaasaan kaga gudbayaa. tan ku xigta waxaa weeye minjo dhooqo midba mar baa la baxshaa. minjo dhooqo midba mar baa hadaad mintana dhooqada waxaa laga wadaa balli dhooqa ah haddaad gasho oo lugaha qabsanayo oo kale baa laga soo qaaday masalkiisa. balliga waxaa la meel maaragtay godan oo biyuhu galaan oo ma garanaysaa marka waqtiga roobku dao biyuhu ay fadhiistaan, roobku markuu baxaana maaragtay dhoola adag noqoto. marka hadday minjo halkaas kuu galaan macnaha midba mar baa la siiba. taas waxaa laga wadaa amuurahaaga say u kala horeeyaan baa loo kala hirgeliyaa ma garanaysaa. say u kala horeeyaan isku mar in maaragtay wixii la sameeyo haddaad isku daydo waa ku fashilmaysaa. waxaa lagaa rabaa marka amuuruhu say u kala horeeyaan u kala munaasabsan inaad u kala hormariso. taasina waa sidaas weeye. ilka wada jir bay wax ku gooyaan, yacni waxaa laga wadaa sida ilkuhu maaragtay markay wada jiraan ay wax u gooyaan ayaa dadkuna hadday midaysan yihiin ay wax u wada qabsadaan. marka midnimadu waa wax maaragtay aada iyo aada muhiim ah oo diintuna ina farayso, caqliguna ina farayo. marka mar walba in midnimada lagu dadaalo, walaalnimada lagu dadaalo, wax wada qabsiga lagu dadaalo ayaa loo baahan yahay. halkaana waxaa weeye dhowaansho ku diide fogaansho ku dood. waxyaalaha qaarkood qaar baa murti iska aan mahmaha ahayn oo kale saas oo kale. marka saasa loo ogaada. annaga murtida iyo baynu ka rabnaa iyo qofka maaragtay saynu ku wacyigelin lahayn iyo ma garanaysaa. dhowaansho ku diide fogaansho ku doon ma garanaysaa. shaygu markuu dhow yahay qofku inuu qabto baa wanaagsan, markuu fogaada inuu doono maaha. matalan baadiyaho kale marka sheekadan ay kasoo unkantay waxaa weeye nin baa waxaa lagu yiri maaragtay war ratigaas dabar maaragtay ratiga cidda ku guurto loo dhaansado dabar anaa ilaalinahayo meel tegi mahayo meel loo aadi mahayuu leeyahay. ratigu waa baxsanaya hadhow buu maaragtay inta burashad ka daba dhaansado 4 beri 5 beri raadkiisa ku joogaya. shala markuu dhowaa oo maaragtay ag taagnaana dabar baa laga waayay, haddana waa dabar ordaya. waxaa kaloo lamid waxyaalaha kaloo nolosha lamid oo kale. hadda matalan wiilasha dhalinyarada ah iskoolka ayay diiday war waxbaro mar haba waxbarashadaan dhabcahay iskoolkaad ka cararaysa hadhow markaad weynaato maxaad soo baxaysaa nin weyn oo waxba aqoonin. marka waxa weye noloshaada inta ka dhiman marka waa inaad xamaali noqotaa. marka inaad xamaali noqoto 10 sano ama 7 sano ama ma garanaysaa inaad iskoolka barato oo maaragtay nolol fiican ku dhaqanaato, sharaf ku dhaqanaato, magac ku noolaato baad iska diiday. haddana 40 sano 60 sano 70 sano
inaad furdada ka xamaasho ayay noqonaysaa, ama aad maaragtay waxlaawo noqoto oo aad shaxaad ku noolaato. marka hawshu markay dhoweydo waad diidda inaad maaragtay qabato, fogaansho ayaad ku doonaysaa. noloshuna sideedaba waxa weeye waa halgan weeye, ma garanaysa, halgan weeye. marka halganka marka sida kuu sahlan inaad maaragtay u qabata ayaa loo baahan yahay, magaraysaa, inaad u qabata ayaa loo baahan yahay. oo magaraysaa intaad yar tahay, inta waalidka ku garab taagan yahay, intaad caafimaadka qabto, inaad wax barato. oo magaraysaa maaragtay waxbarashada ayaana furihii ah baa loo baahan yahay, magaranaysaa. okay, tan ku xigta wuxuu yidhi talo adaa ku nool ee iyadu kuguma noolo. talo adaa ku nool ee iyadu kuguma nool, macnaha talada oo qofu danta inuu garto oo talada dantiisa u qabsado isagay dan u tahay. laakiinse talada lafteedii adigu waxba ku tari aad maysid, adigu taladii waxba u tari maysid, laakiin taladii adigay wax ku taraysaa, magaraysaa, taladii adiga wax ku taraysaa. marka waxaa loo baahan yahay qofku inuu tashado oo dadka way aragsan la tashado, oo maaragtay wixii dantiisa iyo wixii mustaqbalkiisa u dhisto oo ka shaqaysto oo wax barto ayaa looga baahan yahay, magarata. okay, tanna ha la soo eego. waxaa la yidhi rag waxaa u liita matoshe, matashiishe iyo matacbade, ma garanaysaa. matoshe, matashiishe iyo matacbade ayaa u liitaan rag. matoshe waxa weye macnaha marada hadday markay kaa dilacda aad tolato iyo haddaad iska tuurto mid cusub soo gadato waa kala duwantahay, magaraysaa. marka waxaaga inaad karkarato oo wax walba haddaad gaari leeda gaarigaaga dayactirato, oo guri haddaad leeda gurigaaga dayactirato, oo dharkaaga dayactirato, oo dhaqaalahaad maaragtay sidaas waxaaga u kabkabato ayay wax kuugu kordhi karayaan, magaraysaa, ayay kuugu korayaan. okay, matashiishe wixii alla ku siiyey inaad tashiilato ayaa loo baahan yahay. arrintan maaragtay aad iyo aad ba maaragtay dadku adduunka meelay joogaanba ay uga dhacsan yihiin, magaranaysaa, in wax la tashiisho. qofku wixii uu helo wuxuu jecel yahay inuu maaragtay haddiibana kharash gareeyo ayuu jecel yahay, magaranaysaa. waxaad arkaysaa nin maaragtay mushaari ama gabar ama nin mushaari aho maalintii mushaarka soo qaatay inta maaragtay moolka taga, supermarketka taga, wax soo gadayo. kabahan waa qurux badan yihiin, iga gad. shaarkan waa qurux badan yahay, iga gad. waxaan waa qurux badan yahay, wax allaala wixii qurux badan inaad soo gadato. saacaddaad soo gadato saacadda ku xigtana aad barowga ahaato ada waxba haysan, ma garanaysaa. waa nacasnimo wey, ma garanaysaa, waa nacasnimo wey. marka haddaad si fiican u labisan tahay oo si fiican aad u shidan tahay, laakiinse aad maaragtay barowg tahay, de wax qiimaha shidnaantaadu male, waa fake waay. shidnaantaadu waa fake. maalinleedu waataan soo maraynay farihii dufan lahaa wax duuga. farahaagu dufan ma leh. hooyada wax kuma tari kartid, aabbaha wax kuma tari kartid, gabadha aad jeceshiin wax kuma tari kartid. isqaqaloocis iyo qurux beena ayaad meesha la taagan tahay, ma garata. marka qof waxaa loo baahan yahay markuu dhaqaalo soo galo oo mushaar qaato, oo mushaarkaas horta ugu yaraan 10% inuu seef garaysto, meel dhigto. inta kalena maaragtay budget inta u degsado reerkiisa iyo noloshiisa iyo biilkiisa iyo kiradiisa iyo wixiisa u habaysto, ma garanaysaa. iskana daayo maaragtay nolosha fake iyo dhalaalka beenta oo fake ah uu iska dhaafo, ma garanaysaa. maxaa yacni quruxdaadu ay taraysaa haddaad waxba haysan, ma garanaysaa, oo aadan cidna waxba tari karin, ma garanaysaa. taas aniga waa ra'yigayga wey, ma garata. marka waxaa la yidhi dadka sidiisaba 3 buu u kala baxaa bini aadanka. 3 qolo waxaa la yidhahdaa buur, baa la yidhahdaa buur. fuqaro wey qolo. qolona middle class baa la dhahaa, galaaska dhexaa la dhahaa. qolona rich people baa la dhahaa, waa dadka maaragtay maalqabeenka ama maalqabeenka wadadeeda ku socda. marka buurku waxa weeye ninka wax allaala wuxuu helo ka soo baxsho, alaab ka soo baxsho. looxa doona soo gado, qorigaad aragta meel ka soo gado, kaftada kabahaad aragta soo gado, shaarkaad aragta soo gado, ma garanaysaa. guriga soo buuxi. haddii guriga laga guurana wax ku raacaya aysan jirin. qoladaas waxaa la yidhahdaa buur people baa la dhahaa. middle classna waxaa weye dad dakhli badan soo galo oo markaas raba life style inda sarcaada inay maarata dadka tusaan. marka doonigu soo daynsana, gaari wuxuu soo gelisay Land Cruiser soo daymana, guri 500,000 soo daymana,
bas marka waxaas markii mushaharka la qaato 20 guri kiradiisa maaragtay deynkiisa ku bixi 5 gaariga kiradiisa ku bixi 2 ma garanaysaa wax doonta kiradeeda ku bixi 1 maaragtay mobile qaaliya ka bixi ma garanaysaa 1500 oo kale computer qaaliya maaragtay ka bixi marka asagu marka wuxuu u shaqeeyaa deyntaas uu shaqeeyaa deynta inuu bixiyo u nool yahay maraysa deyntaas inuu baxsho ayuu u nool yahay weligiis aliisna kama baxayo maaragtay deyn iyo dhibaato iyo ciriiri kama baxayo maraysa nolol khiyaali ayuu ku nool yahay rich people kun waxa weeye wixii ay helaan waxay ku dadaalaan inay lacagtooda horta save garaystaan lacagtooda ay aruursadaan markaasna ay asad ku gataan asad maxaa la dhahaa asad waxaa la dhahaa shay value leh oo mustaqbalka lacag ku soo gelinayo lacag ku soo gelinayo hadda guri haddaad dhisato guriga adigu aad degan tahay asad maaha adaa isticmaalo magaraysaa adaa isticmaalo asad waxaa la dhahaa guri haddaad adigu dhisatay aad kira ka qaadato oo lacag kaa soo garaa lahaa guri aad kira ka qaadato waa asad laakiin guriga haddaad degan tahay asad maaha magaraysaa waxaaba jirta xataa guryo oo ninbaa $50,000 haysto $50,000 guri fillaha ku dhisaya isagu ma degana hadduusan deganayna marka bishiisana $300 baa lagu ilaaliyaa wiilal baa seexda war guriga ilaasho oo maaragtay biil halkaas ka qaato oo marka gurigiina maaragtay meeshii buu galay lacagna waa maaragtay waa lagu ilaashaa magaraysaa waa lagu ilaashaa waxaa ka fiican kontonkaas inta business kale la geliyo business wax soo saaro oo dakhli dhalo oo maaragtay in la geliyo magaraysaa marka sidaas ayaa maaragtay ila wanaagsan aniga ra'yigayga okay mahmaadan kale iyadana halayla arko ninbaa waxaa la wuxuu lahaa lo uu lahaa marka lo'dii qaalin baa dhashay qaalin yar ah oo candho yar baa lo'dii ka dhashay lo'dii dhashay waxaa ka mid ah qaalin candho yar oo candhadeeda aad moodaysid maaragtay aad moodaysid cantooba aad moodaysid marka lo'da markay maaragtay lasoo fusho guriga ay u soo jirto 10 mayl bay cig ka soo wareegaysaa oo orod isu soo dhufanaysaa bagagac baax warcesho marka wuxuu ka yaabay ninku saca badnaantiisa iyo caana yaraantiisa ayuu ka yaabay markaasuu wuxuu yidhi baaqimooy caano lagaa badi ee yaan cil lagaa badin baaqimooy caano lagaa badi ee yaan cil lagaa badin waxa weeye macna meeshaan caana kuma haysid caanadan xunta ah oo maaragtay cantoolada la eg caana kuma jiraan marka waxa weeye marka yaan marka cil lagaa badin haddii caana lagaa badji marka dad saas ahaa jira oo markii maaragtay aan waxa nuxuran lahayn wax faaliyoona aan lahayn haddana wax ka hadal badan oo ka faam badan oo madaxda iska tusi og aan la arag 24 saac wuxuu iska dhigahayaa ninka kambaniga kala haya ninka cirka iyo dhulka kala haya hadda irbadna dun ma gelin karo magaraysaa irbadna dun ma gelin karo magaraysaa laakiin ilaahay muxuu u dhiibay af iyo istus magaraysaa marka madaxduna waa inay saa ogaato inay maaragtay qofka aysan maaragtay wuxuu ku hadlaayo aysan wax ku cabirina wax soo saarkiisa iyo nuxurkiisa iyo wuxuu maaragtay kambaniga ku taray wuxuu xafiiska dowladda u taray waa in maaragtay lagu qiimeeyaa afmishaarnimada iyo istusto iyo ciga faraha badan waa in laga digtoonaado waa in laga digtoonaado okay waa ka soconaynaa okay ratiga dambe ratiga hore tilaabadiisuu leeyahay awrta baadiyaha hata la isku xiriiriya magaraysaa awrta baadiyaha waa la isku xiriiriyaa marka yacni speedka ay awrta ku soconaysa waxaa xukuma ratiga u horeeya siduu u soconayo ratiga u horeeya hadduu soconayo si fiican u soconayo awrta dambena waa soconaysa marka waxa weeye macnaha qof walbaba qof baa role model u ah caruurta waalidkood baa role model u ah matale marka waalidku hadduusan waxba baran oo aysan waxba aqoonin dee caruurtiina waxba ku tari mahayaan magaraysa caruurtiina waxba ku tari caruurtiina waxaan wax aqoon inay noqoto ayay noqonaysaa haddii xataa caruurta wax baratana waxay wax u baranaysaa si silacahay wax u baranaysaa wax u mariya ma jiro wax casharka ku kaalmeynaya ma jiro xataa muhiimadda maaragtay waxbarashadu leedahay waalidka aan tacliinta lahayn ma dareemayo ma garanaysaa marka waxaa loo baahan yahay inaynu maaragtay ratigii hore baynu nahay inaynu qiimo nafteena gelino nafteena maal gelino wax barno si aynu dadkeena iyo awlaaddeena wax u tarno
tanna waxaa la yihi ragow waxna gado waxna garo safarka markii la yahay matalan wax gata waxna garta macnaha waxaa loo baahan yahay qofku inuu negotiable ahaado oo bini'aadamka hadday wax dhex maraan oo maarata qof la fahmi kara uu ahaado oo maarata dadka wax uga tanaasulo oo magaraysaa maarata dhexdhexaad noqdo oo qof aada hunguri badan u noqon oo qof aada u adag usan noqon qof dabacsan oo magaraysaa naxariis leh oo maarata dadka hadday macaamiil dhex marta si fiican dadka ula macaamila oo dadka u buradaaya waa inuu qofku noqdo. okay tanaa ku xigta wuxuu yidhi dabagooyo mulac isna waa u diliin caruurna waa u cayaar. muluc waxaa la bahal oo baadiyaha jooga oo maaragtay kuwa xayawaanka gurguurta ka mid ah baa muluc la dhahaa. marka carruurtu maaragtay markay aragto intay ul ku dhufatay dabada ka goysaa maqaraysaa dabaday ka goysaa iyagoo maaragtay cayaar ka dhiganaya ku cayaaray u bogbogay asagana waa u diliin maqaranaysaa asagana waa u diliin. marka waxaa la dabagooyo muluc isna waa u diliin caruurna waa u cayaar marka iyaysa dhicin maaragtay wax adiga maaragtay cayaar aad ka dhiganayso magaraysa fan ka dhiganaysa in dad kale bini'aadan aad wax ku yeesho adoo rabada maaragtay inaad noqoto qof maaragtay magaraysa caan ah. hadda waayahan waxaan arkayaa dad maaragtay Facebook inta soo gala qof kala caayahayo oo qof caayahayo dee waxaas looma baahna magaraysa qofka walaalka ayaa cay ku yiri qofkii wax caaya ma istaahila in la daawado maaragtay videogiisa in la daawado maaragtay waayo isagu cayaar iyo dheeldheel iyo magacaaga hala barto iyo uu ka wada qof walaalkiisana maaragtay dhiiggiisa ayuu hilibkiisa ayuu cunaya oo dhibaataynaya magarata marka ha la iska ilaaliyo. okay tanna wuxuu yidhi harag sagaaro iiga kacmooye iiga durug male macnaha sagaarka haraggiisa waagii hore dee dhar ma jirin marka haragga xoolaha iyo ayaa la guntayn jiray magaraysa marka harag sagaaro waa wax aada u yar marka harag sagaaro maaragtay iiga kacma lehe magaraysa iiga durug maaragtay iiga kacma lehe wuxuu leeyahay harag sagaaro iiga kacmooye iiga durug male macnaa markaas waa la goglanayay gogol baa laga waday marka hal qof inuu ku seexdo ma ahani harag sagaaro dhinaca iska xige ma ahani laba qof kuma wada seexan kara marka nacfiga yarna waa saas oo kale nacfiga yarna inuu hal qof loo daayo magaraysa baa iska wanaagsan. tanna waa la mid caws jiilaal camba can buu bidaa caws jiilaal camba can buu bidaa caws waa la yaqaanaa waa waxaan maaragtay dhaqan baadiyaha ka baxa weeye jiilaalkana waa waqtiga maaragtay roobka iyo xaraada iyo jirin oo maaragtay dhulku qalalan yahay weeye cankuna waa maaragtay dee neefka geela mitala afkiisa oo kale marka hashu ay maaragtay saas cawska u cantuugto cawskuna uu yaraa cankaani wuxuu leeyahay cawska xagguu jira canka kalena wuxuu leeyahay cawska xagguu jira magarata marka nacfiga yar baa saas oo kale ah. matalan ninku hadduu 2 xaas iyo 3 xaas leeyahay faqiirna yahay oo waxa yarkaa uu maaragtay hadba dhinac ula ordo hadba qolada markaas ay ka caddahay uu dhiig joojin ugu sameeyo qolo walba waxay leedahay idinka waa laydiin daran yahay qoladaas kalea loo roon yahay magaraysa wax loo kala roon yahayna ma jirtee waxa wixii baa iska yar marka waxaa leeyahay caws jiilaal camba can buu bidaa camba can ayuu bidaa baa leeyahay magarata waa yahay. halkaana maxaa la yidhi awr eryanayo iyo nin haweeney dirayso midna kaama leexdaan magarata rati cayrsanayo iyo nin naagi soo dirdirayso ama walaasha ha ahaato ama xaaskiisa ha ahaato midna kaama leexdaan baa leeyahay. hadda rati cayrsanaya miyirba ma laho oo adoo taagan ayuu kugu tumanaya nin xaloo dhan naagi maanta tolla ay ku lahaydna asaguna waa ku dardaraya magaraysa marka saas waxaa la mida maaragtay qof la soo dirdiray maaragtay inaad isku dhacdaan aad iyo aad bay u dhowdahay marka insha allah maaragtay gabdhaha waayahan maaragtay dagaalada hadda jira iyo waxaa jira iyo ragga ayay ku eedeeyaan markii maaragtay xoogaa colaadii dhiilo la dareemana ayaga waxay leeyihiin talbeelaya rag ma joogo maaragtay oo gambada tuuraya magaraysa oo raggii guubaabinaysa hadha haddii la islaayana ayadii baa maaragtay ku agoontoobaysa oo maaragtay say qaadaysa ma garato marka waxa weeye dumarkow wanaagga ka shaqeeya wanaagga waad ka shaqaysaan wax badan baad qabataan ma garanaysaa
awalna maaragtay markay nabad ahaydna doorkiina cidina maaragtay ma qaban karin. hooyo oo hooyaa tahay, mar hooyaa tahay, mar walaaley baa tahay, mar xaaskii baa tahay, mar gabadhaadii, nooc kastaba maganaysa. waad fiicantihiin marka dhinaca wanaagana ka wada haddii alla idma insha allah maaragtay. okay, 20 jir geedkii aad ku waabato baad 60 jir ku harsataa. macnaha markaad yar tahay wixii aad qabsato ayaad markaa weynaato, markaad maaragtay weynaato ayaad maaragtay u aydaa magaraysaa. marka xagga dhaqaalahana waa noqonaysa, xagga awlaadana waa noqonaysaa magaraysaa. dhaqaalaha 20 jir intaad tahay walaalo waxbaro, gabaray waxbaro, wiilow waxbaro. 20 jir iyo ka yar intaad tahay waxbaro, inta waalidkaa ku garab taagan yahay ood caafimaad qabto ood awood leedahay waxbaro. waana la socda dugsiga sare iyo jaamacadda maaragtay first degree-ga iyo waxbarashada ku joojisaa. first degree iyo macno male hadda, masterka xataa macno male. waxaa rabaa intaad yarta ilaa PhD inaad kaga soo tuurta ayaa loo baahan yahay. ilaa PhD inaad kaga soo tuurta ayaa loo baahan yahay ood waxbarato intaad yar tahay, wax si fiican ood wax u barato. waan aqaanaa aniga dadka very rare, dad aad iyo aad u yar oo saaxiibada dadka anigu aan aqaanay ayaa ilaa PhD wax bartay. aad bay marta noloshooda u fiican tahay, wax u qabsadaan, maaragtay reerkooda carruurtooda ugu aayeen. aniga macal asaf 1987 ayaan bachelor ka baxay accounting and management, ayaan bachelor ku qaatay 1987. meeqa sanaa ka soo wareegtay? 2019 minus 1987 waa 32 sano ka hor. 32 sano ka hor. marka dee waxa weye qof walba horta tilaabadu qaadayo waxa weye waa qoran tahay maaragtay. low taftaxu camalu shaydaani buyi rasuulka calayhi salaatu wasalaam. low maaragtay laba wixii alla maaragtay qofka u qadaro ayuu maaragtay noqonaya, soo maaha. laakiinse qofku haddaba dhowr sano haddaan ku dari lahaa ma garaysaa, oo bachelor masterkaan qaadan lahaa, PhD aan qaadan lahaa, wax weyn bay maaragtay iska noqon lahay. laakiinse qadar allah maaragtay wixii alla qadaray nina maaragtay ma diidayo maaragtay, ma diidayo. laakiinse saa ha loo ogaado oo maaragtay waxa la barto. taas waa xagga maaliyadda. maxaa soo hadhay xagga maaragtay carruurta. 20 jir geedkaad ku waabato 60 jir ku harsataa. waxa weeye carruurta oo kale intaad yar tahay baa fiican inaad dhasho maaragtay, aad carruur yeelato. waan la yaaba hadda xafladaha maaragtay Soomaaliya laga qabanayo markaan arko istacajab. anigu Dubai baan jooga, fiidiyaashii waa daawada doodaha iyo maaragtay xafladaha iyo la qabanayo waad yaabaysaa. aad iyo aad maaragtay waxaan maaragtay u jeclaystaa farabadnaanta dhalinyarada, hadday wiilal tahay iyo gabdho ayagoo laba dhinac inta kala fadhiya maaragtay aad u fara badan. gabdho ciidaas ka badan iyo wiilal ciidaas ka badan magaraysa. waayahana xataa waa arkaya maaragtay doodo dhowr ahoo maaragtay lagaga hadlaya guurka iyo saas oo waxbarashada ma fahmaysa. marka waxaa weeye carruurta intaad yar tahay inaad carruur dhasho ayaa fiican. doodaha damaneed waa arkay waxbarashada iyo see la isugu wadaa. waxaa weeye runtii waxbarashada iyo reerka waa la isku wadi karaa ma garata. waxbarashada iyo reerka waa la isku wadi karaa ma garanaysa. mithaal aniga waktigaygii markaan jiro, aniga horta anoo 17 sano jira ayaan magaalo galay. 17 sano anoo jira ayaan magaalo galay. ABC la ii bilaabay. idinkana waxaa dhici karta idinkoon 5 jira iskool in laydin geeyo. ABC la ii bilaabay iskaa wax u bartay. aniga aabbahay magaalada baadiyahaas maaragtay Ethiopia ayuu deganaa, Dhudub iyo Galaadi iyo halkaas buu deganaa. xoolo badan buu lahaa, xoolo magaalo lahaa, xoolo miyi buu lahaa. laakiinse aniga xoolaha anoo ka cararaya oo xoolaha iyo baadiyaha nacayb aan u qabo ayaan xamar tegey. xamar haddaan tegana dhinacana waxaan ka shaqaysan jiray maaragtay makhaayadaha iyo biibitooyinka iyo ayaan maaragtay waxaan ka ahaan jiray adeega kabalyeeriga ka ahaan jiray. habeenkiina private-ka iskoolka ayaan dhigan jiray magaraysa. habeenkii iyo iskoolka iyo private-ka waxa ayaan dhigan jiray. 1970 waxay ahayd 1969 bilihii u dambeeyay ahayd. ilaa iyo 1975 markaan marayay waxaan gaaray magaraysa ilaa dugsiga dhex duruustiisa meelahaas aan bartay. shaqana waan helay. dowladda hoose xamar ayaa shaqo ka helay. haddana waa guursaday. markaan guursaday markaas magaraysa
isla markii aan guursaday xaaskaygana shaqo heshay wakaalada batroolka anna wakaalada biyaha ka shaqaynayay markaas 1977 ayaan waxaan imtixaan u galay maaragtay dugsiga dhexe dugsiyada sare oo caamka ahaa baan ka qayb galay imtixaankii waan ku baasay wakaalada biyaha xamar baa markaa dowladda hoose xamar baan ka shaqaynaya markii hore wakaalada biyaha xamar baa la ii bedelay markii la ii bedelay halkaas ayaan maaragtay markaana marka iskoolada dhigan jiray private ayaa dhigan jiray computer ma jiri jirin waxba ma jiri jirin warqadda tape baa lagu garaaci jiray 3 jeer haddii la khaldo warqadda waa la tuuri jiray marka aniga maadaama markii aan waxbarashadan baranayay iskool maaragtay 13 maado af ingiriiska lagu qaato ayaa wax kusoo baran jiray luqada ingiriiska wax ka fahmay tape-ka ayaan soo galay marka waxaan ahaan jiray taybista ayaan ahaan jiray wakaalada biyaha xamar ayaan tape-ka u garaaci jiray makaraysa afka ingiriiska qofaan aniga ahayn ma garaaci jiray waa la iigu bogay waa la iigu jeclaaday ma fahmaysa marka dadkii imtixaankii la galay secondary aqoon dirsi waa ka xumaa inaan maaragtay geliyo maaragtay dhex geliyo hadda taariikhdeedii meesha laakiinse waxaan idin tusaya in la isku wadi karo dadka markaan ka baxay aqoon dirsi secondary aqoon dirsigaa soo qaatay waxaa jiri jiray aqoon dirsi wax la yidhaahdo oo secondaryga oo dowladdu maaragtay dadka shaqaalaha ay ugu tala gashay habeenkiina macallimiinta dugsiga sare dhigaa iyo habeenkii iskoolla private dhigi jiray secondary oo private la dhigi jiray kaasaan habeenkii dhiganayay يعني ruulka iyo sharciga iyo buugaagta aqoon dirsiga ayuu iga socday 4 sano saasaan ku dhameeyay markaas waxa daaliska xaaskaygu waa shaqaysay wakaalada biyaha ka shaqaynaysa ana biyaha xamaran ka shaqaynay idin wakaalada biyaha ka shaqaynay ma fahmaysa bas saasaan ku waday secondary-ga dhameeyay 2 years diploma ii soo baxday oo accounting and management sidda maxadka loo jiray oo hadda simad la dhaho 2 years ka ii soo baxay waa helay 2 years ka dhameeyay markaan 2 yearska subax baa la dhiganay wakaalada biyaha xamar waxa la yiri waa lagaama maarmo waxaad yeeshaa warqadaha waa lagu dhigayaa subaxdii iskoolkaaga iska aad galabtii habeenkii imow xafiiska imow markaa warqadaha garaacas saasaan ku maartay 2 sano ku dhameeyay bachelorka ay soo baxay waqti geerkii baan dhameeyay masterate-ka ay soo baxay masterkii baan maartay aan dhamaynin maartay aan ka haray marka xaaskayga iyo aniga labadeedu waa shaqayn jiray ma garaysa labadoodu waa shaqayn jiray carruurtaas inoogu dhalatay ilma maartay anu markaan maartay jiray 23 sano markaan jiray baa gabadheeda orada maartay aan dhalay ma fahmaysa marka waxa weeye aniga waa ida arkaa dhalinyaro waa ida arkaa waxa maskaxdiina ku jira waa arkaa sida xaaladdu tahay sida waaqicu yahay iyo sida u fakaraysan wax isu dhow ma ah meeqaa gabadhu maartay meeqaa laygu aroosa meeqaa laygu meherina hoteelkee laygu meherina ma garanaysa haddii alla ku roonyahay kooxdee ii tumaysa iyo dhaqaalaha iyo wacyiga maanta jira wax iskeenaya maaha midda kale dhalinyarada hadda aniga ku iga sii horeeyo oo kale ibxay yeesha baadiyaha markay joogeen wiilkii gabadha shardi waxaa ahaa inay isku qancaan kaliya inay isku qancaan xoolo lagama fikri jirin markay isku qancaan oo isjeclaadaan laba mid bay yeeli jireen reerkooda intuu tagay oran jiray waa israbnaaye ha la isku kaayo daro ama waa isla dhaqaaqi jireen oo iyaga is soo guursan jireen markay is soo guursadaan ama la isku daro aqal baa meel looga dhisaya reer walbaba neef ariga u soo eriyaya ari baa loo aruurinaya xoolaa la isugu dabaridaya halkaas reerkooda iyo tabcooda ka wadan halkaas ay carruurtooda ka dhaldhalaya looma xayiraan jirin meher iyo lacag iyo adduun iyo midna looma xayiraan jirin ma garata ma fahmaysaa marka waxa way walaalayaalo ma garanaysaa intaas maartay snapshot iyo waa ku jeclahay waa ku arkay naftii idinka dhacday waxaad haysaana lama arko iska daay waxaano hawshiina dhamaysta guurkan maartay shuruudaha laga daayo iibka laga daayo dhaqaalaha laga daayo ha lagu faano aniga intaas caruur ay dhalatay ha lagu faano taasna maartay halkaas ayaan maartay kaga gudbayaa haddii alla idmo okay kana soo haray nin waalan tolkiis baa u miyir qaba baadi nin waalan tolkiis baa u miyir qaba ana waxa weeye haddii maartay aad qaldan tahay dee tolkaa baa arka maaragtay inaad qaldan tahay marka hadda nasiib daro waayahan markaad aragto oo wax dhacaan oo qof qalad samaynayo waa yar tahay in tolkiis ama walaalihiis ay yidhahdaan waad gardaranta war waxaan jooji war gardaradan jooji aad iyo aad bay u yartaa arrintaas marka qofkii walaalkaa ama ehelkaa ama saaxiibkaa oo aragtay qalad inuu ku jiro
qaladka gacanta ka qabo adaa u miyir qaba adaa qaladka arka qabo walaalow qabo ma garaysaa okay kan horaan usoo sheegay okay wuxuu yidhi nin fadhi kugu arkaa looma sara joogsado nin fadhi kugu arkaya looma sara joogsado macnaha waxa weye matalan qof baa maaragtay wuxuu arkaa inaad maaragtay maanta u dhibaataysan tahay inaad kaalmo u baahan tahay marka wuu kuu jeedaa marka hadduusan maaragtay kaalmadii waxaad u baahnayn uusan maaragtay diyaar la ahayn ha ku darin waxba ha la hadli ha dhihin war waxaa isi iyo su waa kuu jeedaay wuu kuu jeedaay mar waxaa la nin fadhi kugu arka looma sara joogsado saas baa laga wadaa macnaheedu ma garata okay talaadaa ku nool iyadaa kuguma nool waa soo sheegay waa ku laga ceshay oo waxaad u nooshahay inaad wax cunto mise waxaad wax u cuntaa inaad noolaato bal arrintaa loo fiirsado dhalinyaroy dadow arrintaasa loo fiirsado oo waxaad u nooshahay inaad wax cunto mise waxaad wax u cuntaa inaad noolaato marka qofku hadduu uu maaragtay fikradda hore qabo oo u qabo waxa u nool inuu wax cuno dee waa khalad wey waa khalad qofka sideedaba ilaahay wuxuu ugu talagalay inuu maaragtay adduunkan khaliif ka noqdo oo bini aadanka wax taro cuntadana inuu noolaado inuu cunaa loogu talo laakiinse hadafka loo nooleeyey maaha inuu wax cuno marka hadda dadka hadda maanta jooga waxay moodaa tan hore inay u badan yihiin oo qofku u qabo inuu wax cuno oo magaraysaa qof mas-uula ama maaragtay saas oo kala baa xoolihii dadka iska qaadanaya jeebka ku shubanaya guriga ku dhisanaya daca qurmahaya asagoo arkahaya dadkii barakacayaasha fulaanlayaasha kuwii soo qaxay kuwii dadkii xaasaskii caruurihii ummaddii oo dhan baaba'ayso oo beerka dhulka ku hayso asaguna maaragtay daca qurmay uu leeyahay gurigan meel hebla ka dhisana meel heblaha xaggan ka dhisana walaalow adduunka waxaad ku leedahay saxan bariida iyo sariiraad ku seexato qofka ugu faqiirsan aalaw intaas waa haystaa wax kaloo adduunka ku leedahay ma jirto soomaadka marka haddaad rabtaa hare inaad meel wanaagsan ku noolaato xoolahaas adigu camal how ama kuwii dadku lahaa ha ahaadeen dadkaas walaalahayo dhibaataysan wax ka sii ha dhergin iyadoo dad caawa guriga kugu xiga caawa ay qadsan yihiin mase caawa dabshidan adigu hadda caqurmin oo raashinka ha soo daadin indhahaaga fur dadka xoolihiisa ha cunin ma garanaysaa iska ilaali kuwa adiga ilaahay ku siiyo adigu aad iska leedahay iyaga wax ka tar u noolow inaad maaragtay wax u cun inaad noolaato ha u noolaani inaad wax cunto ma garanaysaa halkaasaan kaga baxay taasna waa yahay nin soori qaaday nin seefi qaadaa ka roomay nin soori qaaday nin seefi qaadaa ka roomay ana waxa waa laba nin waxa weeye waa nin hunguri xunoo maaragtay yani soor waxa wuxuu loqo waxay miya sharaf ma ilaasho cisi ma ilaasho maxaad noqdaa buu ka nool ninka seefi qaadana waa nin la dilay marka waxaa leeyahay ninkan la dilay iyo ninka soortu qaaday yaa la qaataa waxaa la qaataa baa leeyahay ninka la dilay baa la qaataa waa nin dhinto aad ka samaysay ninka la dilay waa nin dhintay oo aad ka samaysay laakiinse ninka soori qaaday waa nin dhintay oo aad ka samaysay nin dhintay oo aad u qabto inuu nool yahay nin dhintay oo aad u qabto inuu nool yahay marka waxaa weye ninka soori qaaday ilaahay wuxuu qaadan wuxuu arkuu qaadan wuxuu maaragtay makaraysaa ilaahay ma yaqaan rasuulkiisa ma yaqaan ummaddiisa ma yaqaan wax allaala wuxuu arko shilin ku dhaafsanaya war shilinkaan meel lagu tagahayaa ma jiro ma fahmaysa shilinkaan meel lagu tagahayaa si kasta si kii ka dhintaa kii ka dhinta ayaa tahay marka yani ha israacin ki wanaagsan oo ilaahay raali kaagaya wax ku raadi wixii alla ku siiya dadka walaalahaya wax ka siiya okay kanaan kusoo xiraynaa libaax nin galay iyo nin galladay buu ogtahay libaax nin galay iyo nin galladay buu ogtahay
marka waxaa weeye maxay yidhahdeen libaaxa waagi hore libaaxa rag maaragtay wada socdaa baa libaaxa inta raadsada libaaxa meel jooga libaaxa la dagaalamay waa mug qaadin marka libaaxa wuxuu yaqaanaa baa ninkii waranka ku dhuftay ninka waranka ku soo galay waa yaqaan kaasuu kusoo boodi jiray markaas ninka ladayna waa ninaan macnaha aan maaragtay wax ku dhufan oo kale markaas waxaa la mid ah qofka bini-aadanka wax garadka qofki wax tarana wuu yaqaanaa qofki wax u dhigana waa yaqaana qofki wax tarana wuu yaqaana qofki wax u dhigana waa yaqaana intaasaan kusoo koobaya walaalayaal aad iyo aad baa umahadsantihiin insha allahu casharkan waxaan geenaya haddii alla idmo meeshii loogu talagalay ayaan geenayaa khayr baan idiin rajeynaya haddii alla idmo soo dhawaada